السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتين دمانتين maanta waxaa idin soo bandhigaa warbixin ku saabsan shirkadda Samsung. Daawasho wacan. Shirkadda Samsung waxaa asaasay nin la yiraahdo Lee Byung-chul 1938. Magaca Samsungna waxaa laga wadaa saddex xidig. Loogaha shirkadda Samsung mar badan ayaa la bedelay. Marka hore 1938 saan ayuu ahaa, 1969kiina saan ay ka dhigeen, 1980kiina haddana saan ay ka dhigeen, ugu dambeyntii 1993kii way bedeleen ilaa iyo maanta waa loogaha lagu yaqaano shirkadda Samsung. Shirkadda Samsung marka kool asaasay waxay ahayd shirkad oo raashinka gaddo 1938 ama 1938. 1969kii waxay bilowday shirkadda Samsung in ay soo saarto qalabka elektrooniga sida kaamirooyinka iyo fiidiyowada iyo cajaladihiisa. Ma ogi dadka badan oo i daawanaya in ay ka soo gaareen fiidiyogan qadiim. 1970kii shirkadda Samsung waxay bilowday wax soo saarka telefishinada, talaajooyinka iyo kundeeshanada ama mukayifka ama kan oo dabeesha qaboobka soo tuuray. 1991kii waxay soo saartay shirkadda Samsung mobilka ugu horeeya adduunka ma ahan, laakiin mobilka ugu horeeyo oo ay shirkadda Samsung soo saartay. Laakiin muddo yar kadib waxaa soo baxay mobilka Motorola markuu soo baxay shirkadda Samsung dhinac ayaa loo dhigay, suuqeeda dhan wuu dhacay. Kadib shirkadda Samsung waxay go'aansatay in ay soo saarto qalab cusub ama waxyaabo oo elektroonig ah oo cusub. Inta qalab oo elektroonig ah way burburisay. Waa qalab oo u dhigmo qiimihiisa $50 milyan. way gubtay. Macnaha waxay go'aansatay in ay wax fiican soo saarto oo casri ah. Wixii oo mar hore u soo sameysay waxay dhahday wax kama jiro ama wax ma taraayo. Shirkadda Samsung waa shirkadda ugu horeyso oo ay soo saartay RAM oo masaaxadiis tahay 1 GB 1996kii. RAM-kane waa maskaxda kombiyuutarka. 1 GB waagaas wax weyn ayuu u ahaa dadka. Hal sano kadibna waxay soo saartay memory oo masaaxadiis tahay 8 GB. 2007 shirkadda Apple waxay soo saartay iPhone. Kadib suuqa mobilada Samsung hoos ayuu u dhacay. 2 sano kadib waxay soo saartay shirkadda Samsung Galaxy S. Run ahaantii mobilada oo Samsung wax kama aqaani. Ma ogi kamiya Galaxy S, ma ogi. Mobilka Galaxy S markuu soo baxay shirkadda Samsung waxay gaday milyan xabo 45 maalin gudahood iyo 280 milyan hal sano gudaheed. Shirkadda Samsung waa shirkadda ugu horeyso oo ay soo saartay shaashadaha LED Full HD. Samsung waxay sameysay mobilka ugu weyn adduunka. Ma ogi waxay tahay faa'iidadiis, laakiin wuxuu ku jiraa buugga Guinness. Samsung waa shirkadda ugu horeysa oo ay soo saartay mouse oo la yiraahdo Icon. Waa okyaalo oo mouse ahaan u isticmaali kartid, waxaana loogu talagalay dadka curyaamada ama dadka dhibaataysan. waa gashanay indhaha aad ku isticmaali kartaa. Shirkadda Samsung 2013kii xayeysiinta shirkadda iyo waxyaabaha ay soo saarto waxay ku bixisay $4 bilyan. Macnaha intaas lacag ay bixisay sida loo sameeyo sawirada derbiyada iyo xayeysiinta. Fiidiyowga aan ka hadlay shirkadda Apple waxaan dhahay Apple waa shirkadda ugu weyn oo ay soo saarto mobilada, laakiin taas waxay ahayd qalad. Shirkadda Apple waa shirkadda ugu weyn caalamka oo ay soo saarto mobilada. Shirkadda Apple 2012 waxay ahayd shirkadda ugu weyn oo ay soo saarto mobilada. 2011 ama 11 waxay ahayd shirkadda Samsung. Shirkadda Samsung waxay leedahay 490,000 oo shaqaale ah. mobilka shirkadda Samsung oo gubanay, ma ogi hadaad maqasheen, mobilkaas shirkadda wuxuu khasaariyay $15 bilyan. Shirkadda Samsung qalabka elektrooniga kaliya ma soo saarto ama ma sameyso. Samsung waxay soo saartaa hubka. Waxay leedahay isbitaal oo caymiska nolosha. Waxay leedahay shirkad dhismo. Shirkadda dhismaha Samsung waxay ka mid tahay shirkadaha oo dhisay burjiga Khalifa oo ku yaalo Dubai. Waxay soo saartay gaari, laakiin halkaas gaari ayuu ahaa, kadib waa la joojiyay. Shirkadda Samsung waxay soo saartaa dharka. Samsung waxay soo saartaa maraakiibta weyn. Aan idin soo gaabiyo sheekada. Samsung waxay leedahay magaalo dhan oo la yiraahdo Samsung Digital City. waxaana ku shaqeeyo 35,000 oo shaqaale ah ama 35,000 shaqaale ah. intaas aan idin soo bandhigay. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen. haddaad ka heshay fiidiyowga fadlan share garee. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.